tan iyo intii urur ahaan loo sameeyey sanadkii 2006 al-shabaab waxa uu ahaa urur si adag oo qarsoodi ah loo maamulo hawlihiisa waxana uu marba marka ka dambaysa sii noqonayay urur afkaartiisa iyo afcaashiisuba sii durugsan tahay intii uu hoggaanka u hayay Axmed Cabdi Godane waxa uu ku guuleystay ururku inuu tababaro kumanaan kun oo dhalinyaro ah oo laga dhaadhiciyay inay mabda'a ururka u dagaalamaan waxa kale oo ay samaysteen ila dhaqaale oo aan ilaa haatan go'in waxayna soo jiiteen indhaha caalamka iyaga oo weeraro lagu hoobtay ku qaaday gudaha iyo dibadda ninka gacanta birta ah muddadaas ku soo hayay ururka waa Axmed Cabdi Godane dadka yaqaana waxay ku tilmaameen inuu yahay nin adag jecel inuu wax walba maamulo balse haddana ka xeel badiya ragga is hayaan Godane waxaa la sheegay inuu yahay 37 sano jir horaantii sagaashameeyada ayuu galay jaamacadda International Islamic University ee Islamabad ee dalka Pakistan waxaana uu shahaadada BA ku qaatay cilmiga dhaqaalaha waxaana uu isla shahaadada masterka ku qaatay isla jaamacaddaas cilmiga lacagta iyo shuruucda bankiyada islaamka jaamacadda wuxuu ka baxay sanadkii 1997 dadka ay jaamacadda wada dhigan jireen waxay VOA u sheegeen inuu ku xirtay xubno ka tirsan ururka Jamaaca Jihaad ee dalka Masar kuwaasi oo geeyay dalka Afghanistan waxaa la sheegay inuu sanad walba xilliga fasaxa uu tagi jiray dalka Afghanistan isla markaana uu ku soo qaadan jiray tababaro la xiriira hogaaminta iyo in xalka kaliya lagu soo celin karo sharafta islaamka ay tahay jihaad waxyaalaha lagu heli karo cisiga adduunyo iyagoon dhan kaleba ka eegin marka hal ku dhagyada ay ka tageen waxa kamid ahaa ay oran jireen Soomaalidii hore ninkii xoolo dooniyo xamaro ogow ninkii xilo dooniyo xamaro ogow ninkii xaraga dooniyo xamaro ogow xamaro waxa weyn waa faraska marka waxay leeyihiin haddaad adduunyo doonaysana faras iyo dagaal farasku wuxuu astaan u yahay waa dagaalkii haddaad oori iyo qoys fiican doonaysana iyadana faras weeye haddaad xaraga iyo qurux doonaysana waa sidaa jamaacatu jihaad waxay ka go'een ururkii akhwaan muslimiin ee dalka Masar waxaana ka tirsanaan jiray hogaamiyaha xilligan ee ururka al-qaacida Ayman az-Zawahiri Axmed Cabdi Godane waxa uu noqday nin ay si weyn u aaminaan jamaacadaasi wararku waxay sheegayaan in kadib markii waxbarashadiisa dhamaystay uu ku soo laabtay Soomaaliland sanadkii 1998 uuna bilaabay inuu cambaareeyo xukuumaddii madaxweyne Maxamed Ibraahim Cigaal markii dambena uu isku dayay inuu samaysto urur islaami ah balse ay arrintaas u suurtageli weysay sanadkii 2002 ayuu yimid Muqdisho isagoo uu la socdo Ibraahim Xaaji Jaamac oo ay isku soo barteen dalka Afghanistan dadkii ugu horeeyay Muqdisho ay isku arkeen waxa kamid ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Maxamuud Janaqow oo hore wasiirka cadaaladda iyo garsoorka uga soo noqday dawladdii Soomaaliya sargaal sarena ka ahaa maxaakiimta islaamiga xamar markay keeneen oo ay dad qaar ay la kulmeen oo fikirkaas u sheegeen fikirkaasi aad waa u shaqeyn waayay oo xamar lagama soo dhaweynin marka waxay markaasi wixii ka dambeeyay iska go'aansadeen in ay fikirkii ayagoon ka tanaasulin ay iska sii wadaan oo muxuu ahaa ay ka sii shaqeeyaan oo diyaariyaan ilaa dadku ay maaragtay uga bislaanayaan malaha sida aan warka ku hayo ururka ayagu ay maskaxda ku hayeen ma urur maxkamadihii oo kala ah mise waa urur sida hadda al-shabaab ay tahay maanta oo kala dabcan midka hadda ay iyagu wadaan bay fikirkoodu u badnaa waayo waa isgaranaynay oo fikirkoodu marka ay soo bandhigeen waxyaabaha lagu yara dhaliilay ama dadka ay inta badan isku seegeenba waxaa kamid ahaa fikirkan dagaalada oo muxuu ahay dadkan la ikhtiyaalayo ama shirqoolada gaadmada dadka lagu dilaayo iyo waxyaabo noocaas oo markaas aan dadku u liqmi karin ayay wateen ka hor inta uusan noqonin amiirka al-shabaab waxa uu soo ahaa madaxa dugsiga tababarka mintidiinta ee ku yaala waqooyiga Muqdisho ee lagu magacaabi jiray Salaaxudiin Al-Ayuub oo ay wada asaaseen isaga iyo Aadan Xaashi Cayrow madaxii difaaca iyo howlgallada ee al-shabaab oo laftigiisa ku dhintay duqayn ay Mareykanku geysteen sanadkii 2008 sanadkii 2012 kadib muran dhex maray isaga iyo xubno ay ka mid yihiin Ibraahim Afqaan iyo Sheekh Xasan Daahir Aweys ayaa Godane waxa uu ku dhawaaqay inuu bayco ama qandaraas la gaaray ururka al-qaacida ayna isku beereen waxa lagu tilmaamaa inuu yahay nin aftahan ah oo ka soko amiirnimada jecel in loo arko inuu yahay wadani Godane waxa uu in badan u digay dadka ka soo horjeeda ururka al-shabaab waxaana uu ka codsaday inay adeecaan waxaana uu muujiyay inuusan u adkaysan doonin cidii amarkiisa u hoggaansami weysa isagoo arrintaasi ka hadlayayna waxa hadalkiisa ka mid ahaa haddii saddex la yahay oo xataa dhul saxara ah oo bannaan la joogo in amiir laga dhigto mid imaaraduna macnaheeda kulladan ee kullamaan waa samcu wa taaca weeye marka waa diin ama imaarad safar ha noqoto ama imaaratu mucaskar ha noqoto ama mid jabhad ha noqoto ama mid xaraka ha noqoto ama mid dawladeed ha noqoto ama mid khilaafa ha noqoto darajaadkeedu ha kala sii weynaadaan laakiin ikhwaan fillah waxayna samcu wa taaca waa shay mulaazim u ah imaarada heer kastay joogtaba
19 bishii Juun ee sanadkii hore waxaa magaalada Baraawe lagu dilay 2 xubnood oo ka tirsanaa hoggaanka ururka oo ku jiray Ibrahim Al-Afqaan iyo Sheekh Cabdulxamiid Colhaye oo loo yaqaanay Macallin Burhaan. waxaana la aaminsan yahay in ciidamada amniyaadka ee hoos yimaada Axmed Cabdi Godane ay ka dambeeyeen dilkaasi. labadaas nin iyo kuwo kaleba waxaa la aaminsan yahay inay noqon kareen kuwa maalin uu bedela Axmed Cabdi Godane. waxaa kale oo la sheegaa inuu hoggaanka ururka qaban karayay Sheekh Mukhtaar Roobo Abu Masuur, balse isaga laftigiisa khilaaf dhex mara isaga iyo Godane darteed uu ka tegay ururka isagoo oo ku noqday deegaanka uu ka soo jeedo. nin hore uga tirsanaan jira ururka waxa uu ii sheegay in bixitaanka Godane haddii la xaqiijiyo uusan ka dhignayn dhammaadka ururka. waxa uu aaminsan yahay in bixitaanka Godane uu soo celin karo shakhsiyaad muhiim ah oo hore uga tirsanaan jira ururka, kuwaasi oo Godane ay iskhilaafeen uuna ka mid yahay Sheekh Mukhtaar Roobow. hase yeeshee Sheekh Cabdulqaadir Janaqow waxa uu shaki uga jiraa in ururku uu dad kale soo jiidan karo. Sheekh Cabdiraxmaan Maxamuud Janaqow waxaa kaloo uu aaminsan yahay inaan laga yaabin in ururku uu ka faa'iido maqnaanshaha Godane sababtoo ah ayuu yidhi waxaad garan kartaa haddii uu meesha ka baxo dee waxa dhammaa baxa, waayo ma lahan leadership fara badan oo isaga ka garab shaqaynayay oo dhisnaa ma jiro. dictatorku inta isaga ka hoosaysana waa baabi'iyaa, isagu markuu baaba'ana waxa dhammaa baaba'a. balse Professor Ken Menkhaus oo cilmiga siyaasadda ka dhigay jaamacadda Davidson College ee gobolka North Carolina ee dalkan Maraykanka ayaa qaba inaysan u badnayn in dhacdadani ay waxyeello u geysato xarakada, inkastoo laga yaabo ayuu yidhi tafaraaruq inuu marka hore dhaco. waxaana uu tusaale u soo qaatay in dilkii taliyii hore ee Al-Shabaab Aadan Xaashi Cayrow uusan waxba u dhimin ururka. As you recall, in 2008, Shabab lost its leader to a U.S. missile strike, Aadan Xaashi Cayrow. waxa uu yidhi haddii aad xasuusatid markii lagu dilay gantaalka hogaamiyahoodii hore Aadan Xaashi Cayrow sanadkii 2008 taasi ma bedelin jihadii ururku ku socday. waxa hadda isbedelay waxa weeye Godane waxa uu ka takhalusay ragga ay iska soo horjeedeen oo noqon kari lahaa ragga bedela. tani waxay kordhinaysaa suurtagalnimada in ururku uu kala jabo oo qaarkood ay dhinaca dawladda u goostaan oo ay is-afgarad la gaadhaan, qaar kalena ay dhexdooda ka dagaalamaan iyagoo isku haysta hoggaanka. mar uu ka jawaabayay in ururku uu dhiman karo Godane la'aantiis, Professor Ken Menkhaus waxa uu yidhi shaki ayaa iiga jira arrintaasi. waxay ila tahay inuu sii noolaan karo si kasta taasi ha ku timaadee. waa suurtagal in ururku uu cidhiiri soo food saaro oo kala dhambala aakhirka, kadibna uu mar kale dib u soo noolaado isaga oo magac kala huwan. waa sida ay samaysay Al-Ittixaad iyo ururo kale hadda ka hor. haddaba yaa laga yaabaa inuu bedelo Axmed Cabdi Godane? dadka aqoonta u leh Al-Shabaab waxay sheegeen in laga yaabo dhowr nin midkood inuu bedelo. ninka ugu horreeya waa Mahad Warsame Qale oo lagu naanayso Mahad Karatay, sidoo kalena loo yaqaano Shabaab dhexdeeda Odawaa. waxa uu hore uga tirsanaan jiray taliyaashii ururka Al-Ittixaad. waxa kale uu la soo dagaalamay Itoobiya sagaashameeyadii gobolka Gedo. waxaa la sheegay in dabayaaqadii sagaashameeyada lagu xiray dalka Kenya, kadibna loo wareejiyey dhinaca Itoobiya, balse markii dambe la soo daayay laguna arkay gobollada dhexe ee Soomaaliya. waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay nin aan si toos ah u sheegin waxa uu damacsan yahay, aamus badan, balse ku wanaagsan abaabulka ciidanka, inkastoo inta badan uusan aadin furimaha dagaalka. waxa uu dhowr jaga ka soo qabtay ururka Al-Shabaab oo ay ku jirto jagada madaxa amniyaadka, madaxa maktabka difaaca, iyo haatan oo uu yahay ku-xigeenka amiirka. kasoko jagadaasi waxa uu kormeeraa oo hoos yimaada waaliyaasha gobollada Shabeellada Hoose, Shabeellada Dhexe, Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe. nin kale oo bedeli karaa waa Sheekh Mahad Cabdikariin oo loo yaqaano Axmed Diiriye ama Axmed Dheere. waxa uu hore u soo noqday waaligii gobollada Baay iyo Bakool. isagana waxaa hoos yimaada waaliyaasha gobollada Baay, Bakool iyo Gedo. waxaa la sheegay inuu abaabulay weerarkii ka dhanka ahaa Abu Masuur al-Amriiki oo ka soo horjeeday Axmed Cabdi Godane. waxaa kaloo la sheegaa inuu qabqabtay xubno badan oo isugu jiray Soomaali iyo ajaanib xilligii kacdoonka gaaban uu ka jiray magaalada Baraawe sanadkii horeyna waxaa la sheegay inuu la soo shaqeeyey Ibrahim Afqaan markii uu ahaa waaliga Jubbada Hoose. xubin kale oo qaban kara jagada waa ninka muddada dheer soo ahaa garsooraha sare ee ururka Sheekh Cabdulxaaq oo sidoo kale loo yaqaano Daahir Gacamay. waxa uu ahaa ninka ridayey xukuumadda isugu jira qisaasta, ciqaabta, gacangoynta iyo dilalka dadka lagu tuhmo basaasnimada iyo dembiye kale. nin kale oo jagadan qaban karaa waa Sheekh Suldaan Maxamed Aale Maxamed, madaxa ururinta zakaadka oo muddo dheer ururin jiray xoolaha iyo dhaqaale kaleba, kuwaasi oo qaybo ka mida lagu maalgeliyo ururka, qayb kalena la siiyo dadka danyarta ah iyo agoonta. waa nin laga tixgeliyo xarakada dhexdeeda laguna tilmaamo inuu yahay nin aan cadow badnayn. waxa uu kaga duwan yahay xubnaha kale ee ka tirsan hoggaanka Al-Shabaab inuu si toosa ula hadlo warbaahinta isagoo aan wejigiisa qarin, balse kama hadla inta badan howlgallada iyo siyaasadda, taasi oo dhaawici karta hamigiisa hoggaani.